noqon bulshada dhagax iska dhaxyaala ee hawmi sida xidigu cirka uga ifa bulshada waa halku dhiga dhalinyarada Nadiga Hansoor oo siiska wax u qabsaa uga wada duleedka galbeed ee magaalada Cerigaabo argada laga soo galay magaalada Cerigaabo waana astaanta ay magaalada Cerigaabo kaga duwanaan doonto deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag gudoomiyaha Nadiga Hansoor iyo qaybo kamid ah dhalinyarada sida mutadawacnimada xoogga ugu darsaday argadani oo la hadlay Horiyeel TV waxay nooga warbixiyeen maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay argadani maanta waxaan wadnaa argadii magaalada Cerigaabo runtii waxa sameeyay argada tan dawlad ma sameyn shirkadna ma sameyn waxa sameeyay intan oo dhalinyaro isu tagtay baa yiri maanta maxaynu magaaladeena ku soo kordhinay kadib isu tagoodii iyo gacmihiisa is qabsadeen ayaa wuxuu dhalay in maanta ay dhisaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto halkan waxa ka socda barnaamijkii ahaa iska wax u qabso ee xilqaankii dhalinyarada gobolka Sanaag oo ku dhacay waxay ku dhici waayeen in ka badan kumanaan ku dhalinyaro ku nool Afrika waxa maanta dhamaada gabagaba argadii dhisidii halka magaalada laga soo galay welcome ururka Hansoor aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida hawlkarnimada leh isxilqaannimada leh qofnimada leh ee maaliyo muruq iyo waxa noqon bulshada dhagax iska dhaxyaala sida dhagaxa iska dhaxool ee ahaw mid sida xidigu cirka uga ifaan uga dhaxifa kaba mahad leh maanta caafimaad qab baan ku joognaa halkan waxaan wadnaa hawsha argada dhismaha dhalinyarada isxilqaamayaasha istirayaasha ururka dhalinyarada Hansoor oo maanta ku hoolan sida ay u dhisi lahaayeen u hagaajin lahaayeen una soo saar lahaayeen bilicda gobolka Sanaag maanta waxaan ku dhownahay feeskii ugu dambeeyay qaybtii ugu dambeysay baan u shubi doonaa may ahayn oo kaliya dhalinyarada sida mutadawacnimada uga qayb qaadanayay argadani balse waxa dhankooda hareer socday mid kamid ah musharaxiinta kuraasta golaha deegaanka ee degmada Cerigaabo isku soo xilqaamay argada waday maanta ma sha Allah gabagabadii ay ku dhowdahay sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay hawshan ay dhalinyaradu wadaan kala qayb qaadatay muruq iyo maalba muddo sanadaha oo jirtay Nadiga Hansoor waxa magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay ka fuliyeen mashaariic badan khayri oo ay ku diirsadeen bulshada gobolka Sanaag Adnaan Cabdirashiid Ali Horiyeel 24 TV wararka gobolka Sanaag Cerigaabo